hogaamiyaha galmudug oo toddobaadkan ka qayb galaya munaasabad lagu soo bandhigayay ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha oo ka dhacday madaxtooyada galmudug ee Dhuusamareeb ayaa la kulmay kacdoon dadweyne oo ugu dambeyn isku bedelay gacan ka hadal. ila xogaal ayaa inoo sheegay in tuuri ay ka dhex bilaabatay xarunta madaxtooyada oo ay ka dhacaysay munaasabada soo bandhigida ololaha codbixiyaasha, waxaana tuuriyadaas ay sababtay in dhaawac uu ka soo gaaro madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo halkaas ku sugnaa. ila xogaal ayaa inoo xaqiijiyay in shacabka kacdoon ka sameeyay ujeedkoodu uu ahaa inay ka xumaayeen hab maamulka liita ee madaxweyne Qorqor. dhanka kale ila kale ayaa sheegay in abaabulka kooxdan ay lahaayeen xafiiska agaasimaha cusub ee NISA Mahad Maxamed Salaad. si kastaba ha ahaatee dadweynaha ku nool deegaanada galmudug ayaa xilligan og caqabadaha laga dhaxlay madaxweyne Qorqor muddadii uu xafiiska joogay. waxaa sidoo kale dadweynuhu ay aaminsan yihiin in hadda wixii ka dambeeya haddii uu xafiiska sii joogo ay adag tahay in laga sugo natiijo wanaagsan. taas beddelkeed waxaa macquul ah in deegaanada qaar ay ka dhacaan kacdoon dadweyne oo laga soo horjeedo maamulka madaxweyne Qorqor. saraakiil ka tirsan xafiiska madaxtooyada galmudug ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Qorqor xilligan uu wajahayo kacdoon dadweyne oo ka socda gudaha deegaanka, tii ay u sii dheer tahay in siyaasiyiinta deegaanka ka soo jeeda ee ku sugan Muqdisho aysan waqtigan la dhacsanayn maamulka liita ee madaxweyne Qorqor